وسوق ورسله وأن عانى كنا نول دقمة جوهر واللحظة إتال ودشي وحا إتال كأودير وادتك أين دأذو كموقا وعلم اللتير أفتهنا وحونا كسو برباري رؤية بير كواسو أين رشا قويسكي سوا كتير سنتاي وحو دقينيهي بيرقن سعود أجرته مقالة الجوهر قبل كسر لها بحي وكنو ريهينا أيا لوغي يقان لوغنا تهجليه واسوغي wuxuu goostay inuu sadcaal gaaban xamal ku gaaro si uu u soo fushado umuuro yaryar oo la xiriira baahida qoyskiisa waa barqad la kala agaasimay ilmihii iyo xoolihii waayeelka reeruhu wuxuu isu diyaarinayaa hawl maalmeedkii beeraha waa suge maanta ayuu baxayaa wuxuu la dardaarmayaa oo uridka la taagan yahay afadiisii muslimo halka uu hooskiisa subax ku dhammaado waxaa ku cayaaraya da'goyskii muslimo oo 5 jir ah wiilka dhinaciisa bidixeed waxaa ku xiran weylo ay lo-i ka sooftay geestooda isdaba joogga ahna ay iska maqli la'yihiin waa suge iyo afadiisu muslimo waxay taagan tahay qaarka gudihiisa iyadoo cuskan yaambo ay beerta u soo qaadatay waxay si xiisare u dhagaysanaysaa waa suge oo kala ballamaya reerka iyaduna waxay markeeda duqa ku adkaynaysaa fariimo u gaara baahideeda mar hadduu magaalo tegayo duqii iyo afadiisii oo weli dardaarmaya ayaa waxaa u yimid rag jawhar ku socda oo ay waasuga ku ballansanaayeen inay isla jilmaraan halkaas ayayna iska raaceen waxay socdaan kus taraaran keliyana ka tallaabaanba goor duhur dabayaaqadiisa ayay tageen magaalada jawhar kadib markuu odayaashii la shaacabay waasuga wuxuu si toosa u aaday suuqa baabuurta wuxuuse ku beegmay baabuurtii xamar oo goor hore baxday nasiib wanaag indoora markuu taagnaa waxaa gaalkacyo ka yimid baabuur xamar u socda dhowr qof ayaa halkaa uga degay si sahlan ayuuna waasuga kursi uga helay isla baabuurkaas uu waasuga soo raacay waxaa la socday nin isna caana oo la yidhaahdo warsama hawl kana mid ah xoola dhaqatada gobolka mudug warsama wuxuu asaguna u soo danaystay isla magaalada xamar waasuge iyo warsame maqaadiir eebe ayaa ku kulmisay baabuur gudihii waa laba oday oo kala daran xagga aqoonta dhaqanka dadkooda iyo waayo aragnimada kale intaba wuxuu mid waliba rumaysan yahay inuusan koonkaba ku noolayn ruux uga aqoon badan suugaanta soomaalida wax kalaba yeelkoodi dadka kale oo baabuurka saaran waxay u badan yihiin rag dacdhaxaada guud ahaan waxay isugu dhafan yihiin rag iyo dumar dhalinyaro iyo waayeel dhowr kursi ayaa ka bannaan baabuurka waxaase la malaynayaa in jidka dad laga sii helayo reer magaalka baabuurka la socda waxaa ka mid ah wiil 20 jir ah muuqaalkiisuna ka duwan yahay inta kale wuxuu labisan yahay surwaal iyo shaar turmadooda looga dayday habka cusub ee dhalinyarada reer galbeedka waxaana ku yaal timo aan weli maqadka la barin waxaa magaciisa la yidhaahdaa dhaanraac waana inan meel sare ka gaadhay ku dayashada xaragada reer galbeedka waqtigu waa isgurayaa goor casar soo dalala galay ayuu baabuurku ka soo dhaqaaqay magaalada jawhar waa maalin ay hawadu aad u wanaagsan tahay shufeerka baabuurka wadaahu waa nin waayeel ah waxaa caado u ah in mar kasta oo baabuurku dhaqaaqayo uu dadka saaran ku yidhaahdo faatixada akhriya dadka oo odayaal u badnaa daraaddeed maalintaas waxaa faatixada la akhristay intuusan shufeerku hadlin faatixadaas wadajirka loo akhristay dhaanraac kama uusan qayb gelin wuxuu ku hawlanaa oo ku sallaysanayay muraayadda baabuurka in yar kadib markii sabada jawhar laga baxay ayaa la galay beero aad u baxaad wanaagsan oo jidka labada dhinac kala xidhiidha waxaa lagu jiraa sanad barwaaqo ah oo bar iyo beerba ay mahadiyeen galley sisin iyo khayraad kale ayaa beeraha ka dhisaaran dadkii baabuurka saaraa badiidood dariishadaha ayay madaxa ka wada riteen ayagoo il iyo laab kulansan beeraha ku daawanaya
وسجى وفصل كاس بيرتيس وحمي أي كوان آد وبدأ وحنا أنتوا إسألها عي جليدة هي المسجلة قلبي جوجه إسأي بأثني مع صارين بود وديجين وين بحال آلين كره بي وجود إن دوبر واقع بدر أقبحين بكار لوصله باهي ولي وأبليه markii beerihii laga baxay oo cabaar la socday ayuu shufeerkii qaboojiyay socodkii baabuurka si isdaba joog ahna hoonka u yeeshay taasina dadkii oo dhan ayay dhiilo ku abuurtay qof waliba wuxuu isidii bal hubso waxa baabuurka hakiyey waxay arkeen jidkii oolo iyo geel fara badan oo ku gudban yihiin waxaa la soo galay meel bulsho xoolo dhaqato ahi naq ka degtay dhulku waa doog iyo biyo dhex yaal midabada indhuhu jecel yihiin oo dhan waxay ku kulansan yihiin dhirta kala jaadka ah oo ilaahay dalsanka ku beeray laama cargeeyey oo caleenu ku gaafsan tahay ubaxna guuska ku sita ayuu geed waliba la tiicaya ragga iyo dumarka xoolaha la jooga oo caafimaad iyo farxad buuxda ka muuqdaan waxay isku maaweedanayaan lagdan iyo cayaaro hidde qaarkoodna meelo kala fog ayay koox koox ugu sheekaysanayaan warsamo ayaa markuu arkay geelii oo isugu jira irmaan iyo horweyn aaran iyo galoof iscelin waaye markaasuu ku dhuftay kuna luuqeeyey heestii geela ay ahayd geel nimaan dhaqan goodir xalay dhalay gaawuhu u culan gaarka kala gelin naata godol qaba gaagaxna u helin gurdankood maqal gadoon kala dhihin gaatan ula socon geed qabow tegin waa gob yaa yidhi markuu warsame heestii dhameeyey ayaa dadkii baabuurka saaraa badidood ka codsadeen inuu ugu soo celiyo warsame way la xumaatay inuu isla heestii ku soo celiyo mar labaad maxaa yeelay waa nin korka ka haya suugaan fara badan isla markiiba wuxuu dadkii u dooray baydad ka mid ah gabaygii cumar isteeliye ee ahaa meeshii awow iyo awow xaawo iyo aadan aqligeenna xoolahani way ku isiraayeene adduunsa lama sinna ee geel horaa laysu aaminaye waa waxay abaartu u dhaqdeen odayadeeniiye haddii oo faweynow ratiga ayra lagu qooqsho amin khayrka galabtii hadduu aaran soo diriyo usha koliya 2 jeer haddaad yaro ogeysiiso umalkii uu qabay doob hadduu awda kaga siiyo indhalaliska maciduu sidii aar u rabinayo kolna waxaan adduunka lahayn aabi socodkaas si weyn ayuu dadkii gabaygaas ugu riyaaqay qaarkoodna waxayba wadajir ugu luuqeeyeen beydka ugu dambeeya ee ah kolna waxaan adduunka lahayn aabi socodkaas dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa haynoo joogo waa inoo toddobaadka soo socda iyo qayb labaad oo ku saabsan sheekadii waa suge iyo warsame sudcaalkii 30 maalmood